وبرنامج كاني إفطار الصائمين أن نكون أفرين لي ضدك الصومن هلي كرين وحي كو أفران وأنا برنامج كي أي نوسو بندق شتي جمعية الساعد الخيرية المدى أن سوّني سدحدي سنة ودنبيي waxaan jecelahay maantana bisha Ramadaan inaan ka qayb qaadano oo qof waliba wuxuu heli karayo kaga qayb qaato haday noqoto qurba joog iyo haday noqoto bulshada kaleba dhamaan bulshada marka caalamka ee islaamka waxaan ugu baaqaynaa in ay ka qayb qaataan barnaamijka lagu afurinayo walaalaha marka waxa weeyaan iyagu helin afur ku filan anigoo ah gudoomiyaha marka jimciyada saacid waxaan baaq dheer u dirayaa inay bulshadu ay si weyn uga qayb qaataan barnaamijka afurka oo ay maartay waxa weeye qof wali wuxuu heli karayo uu ugu hagaajiyo lambarada shaashada ka muuqda walaalaheena jamciyada saacid al-khayriya oo runtii u taagan in ay caawiyaan walaalaha muslimiinta gaar ahaan bisha Ramadaan xagga ifdaarka waxa aynu aad u jecelahay inaynu ka wada qayb galno oo aynu caawino oo aynu ku garab galno barnaamijka khayriga ay u taagan yihiin iyagoo runtii Ramadaano badan sidaasi sameeya oo Ramadaantii hore baan ogaa inay sidaasi sameeyeen oo ilaa dhowr boqol oo ruux ay markaasi afuriyeen ama ay iftaarkiisa diyaarinayeen ruux sooman afuriya waxa uu nabigeena xusay calayhi salaatu wasalaam in aad leedahay ajarkiisa oo kale isagoon isna kiisii laga nusqaaminahayn oo ilaahay fadliga dheeraadka iyo arintaasi aad ka wanaagsan ilaahay nagu siinayo hal ruux baad afurin kartaa labaad afurin kartaa waynu ka badin karnaa waliba walaalayaal waqtigan imika aadka u baahida badan ee dhibta badan jirto ee xanuunada iyo aafooyinka iyo balaayooyinka ay dhaceen waxa iyaguna ku sii darxumooday dadkii fuqarada ahaa ee baahnaa markii horeba beerka dhulka ku hayay waa inaynu qaadanaa sidii ilaahay uu ku amaanay muuminiinta wayطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا waxa ay qoodinayaan iyagoo cuntadii markaasi la jecel badan ka hayso iyagoo runtii ka cabsanaya oo dabawgar badan iyagaba laftigooda uu hayay bini aadam yihiin muuminiintu marka jamciyada saacid aan ku garab gallo aan ku garab istaagno iyagana ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ku asturo sadaqada iyo waxyaabaha aynu bixinayna ilaahay subhanahu wa ta'ala inta inaga xanuunsanaysana ha inoogu shaafiyo intii dhimatayna Allah ugu naxariisto barnaamijka qiimaha badan ee jeedinaysa jamciyada saacid al-khayriya ku saabsan afurinta Ramadaanka ilaahay subhanahu wa ta'ala ka abaal mariyo iyaga cid kale ka qayb qaadataba waa barnaamij qiimo badan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ma anfaqtu min shay fa huwa yukhlifuhu waxa la baxdaan ilaahay baa bedel khayr qaba subhanahu wa ta'ala idinka siinaya rasuulku sallallahu alayhi wasallam ma fatara saa'iman qofka afuriya qof sooman كان له مثل أجره أجر كيسو كلا أيوه ليا وحبان كان يسقام هين رسول صلى الله عليه وسلم وحلو ويديي أيو الإسلام خير إسلامك نوع هالكيبا وقو خير بدن رسول صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام وبحنت ولا ليال وحويان أخلاق ذا وناكسن يا عاداتك وناكسن يا دقنك وناكسن أي رنتي أي كميت هاي سأوجد وين وهم بلياننا جمعية تساعد الخيرية برنامج أي قبنا يسو waxaan oran karnaa halkaas ka duushay waana ku mahadsan yihiin cid kastana waxaynu ka rajaynaynaa oo runtii kamid bulshada in ay ka runtii ka qayb qaadato oo iyaguna kaalinta ay gasho waxaynu ugu soo wajahan bishii Ramadaan khayr ka badnayd waa bil ajarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka u badiyo samafalkana marka laga qayb qaato waxa jira jimciyad la saacid oo muddo soo waday iftaaru saaimin yani quudso dadka masaakiinta muddo badan ku soo dhex jirtay Ramadaan tan imakana arintii way sii wadaa oo way ku jirtaa waxaan doonayaa in laga qayb qaato Ramadaan tan waliba duruufo kale oo adag baa jira umadii shaqadiiba dad badan laga fadhiisiyay xanuunkana xidhay baahi badan baa jirta barakallahu fiikum laga qayb qaato marka aynu kala qayb qaadano aynu iska rab taagno cidii marka wax bixinaysa way soo marin kartaa oo dhiibi kartaa waxa weeye khibro iyo shaqana way u leedahay marka ka soo shaqeynaysay marka aynu iska rab taagno nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka qof sooman afuriya waa maxay wuxuu ku afurasiya ilaahi subhanahu wa ta'ala dambigiisa waa dhaafa jannadana waa geliya waxaanu ka dhigaa mid leh ajar kii soomanaa leeg iyadoo oo aan ka soomana ajarkiisa laga nusqaaminay saxaabadu waxay ya rasuulallah
maa kullunaa yajidu maa yuftiru bihi saa'iman miyaa qof walbaaba helayaa wuxuu ku afuriyo walaalkii bal u fiirso halkii ku jirta khayrkuna waa kan suu yidhi inama alfitru fii tamratin xabad timiri waa afurin waa xabad timira qiimaynta le waa la garanaya aw madqati laban ama kabacaana ah aw sharbati maa ama kababiya ah intaas waa afurin wixii ka badanna hadalkeeda daa